بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرة وزيرك وسلامين وزيرة كحجيك وسلامين كتوك وسلامين برمان وسلامين هاي وزيرة وحن ورسنا يا ويدينا يا وزير واحد شرتا إن أي دلاعين تذكريها إبسانية أو بيرك إبسانية أو ودنها إبسانية أو مكانك إبسانية أو أي شيئين إن المجالات المختشة كلها ينحرموا إن كلها يهين سود ويست أي كلها ينحرموا إن بدلا كلها ينحرموا إن إثيوبيا كلها ينحرموا أو أي قلنا يان مركا إلك وزارة عافماتك محل وزير أنتاس إن أدونا بقشة أو ضدك هوشة ولا أتصاح الحدان حبسية التي ستان محكمتنا أتكلم بارهنا وزير الماس. organada la isku abuuray transplant la yiraahdo waa nagu soo noqnoqotay waxyaalo badanna waxa laga yaabaa inay waxba ka jirin waxna waa ka jiri karaan laakiin wax cadeymo ma hayno wax evidence ah oo cadeyn ah oo cus aan hayno waa daba gali karnaa laakiin waa la yiri waqti badan aan maqlaynin kollayna ma soo gaarin indhaheena waa furnaanayaan haddii aan idin private ka waa lagu nastay alxamdulillah in badan laakiin private aanan regulated ahayn aan ku celiyo private qaarkood ma rabaan sharciyad in loo sameeyo sababtoo ah danaa ku jirta fawdada sharciga wuxuu celinayaa fawdadaas waxaad dareemaysaa dad badan inaysan rabin sharciga xataa inuu maro aniga dad badan aan la sheekaystaa magaalada dadaa noogu jira sharciga daawada iyo sharciga taqaatiirta waa sharciga taqaatiirta kaliya ma aha mihnadayaasha caafimaadka waa labada sharci oo muhiimka saldhig u ah wasaaradda caafimaadka waxa kale oo aan ansixinay bil ka hor institute-ka oo machadka qaran ee caafimaadka maxaa la sameeyaa research quality control iyo training saddexdaas sharci oo muhiimka haddaydan idinka noo ansixinin oosan hirgelin annaga awoodeena mar walba waa yartahay runtaan idin sheegaa sharcigaas idinku idinla yaala idinku waajib idinka saaya leegasina idinka idin gelaysa baarlamaankiina shuruucdii caafimaadka saldhigga u ah oo muhiimka ah inay xaliyaan wasiir iyo tiimkiina waxa idin weydiinaa waxaa laga hadlay cudurrada faafa sida TB-da adkaysiga yeelatay oo runtii awal lahaan jirtay in loo sameeyo meel karantiin ah oo lagu xareeyo dadka oo runtii hadda waxaad arkaysaa dawo waa la siiyaa baa la yiri laasareeti laakiin dadkii suuqyadii bay joogaan waana ogtahay sida loo qaasiin karayo marka inay helaan meel jiif iyo cunto oo lagu xanaaneeyo oo in arintaas maxaad ka qabatay labo ilmaha MCA-jada ku dhashaa waxaa la yiri xanuuno badan baa lagu arkay qalal iyo hadal la'aan iyo canugyo marka cuduradaas waxa nagu soo ziyaaday miyaa mise talaalada keenay wasiir dalku waa dal federaal ah de ma la raba caafimaadka in xamar laga maamulo waxa la rabaa caafimaadka dadka in loo geeyo baydhabo iyo diinsoor iyo xudur la geeyo ama la geeyo deegaanadoodii marka dawlad goboleedyadii doorkoodii wasiir iyadana meesha maanta si waxaad u jawaabaysay adigoo de dalkoo dhan adiga gaarsiinaya dawadii oo kale waxaad wasiir sheegtay dawada Soomaaliya ma rabtaa baa leeyiri baa tir warkaas waan maqli jirnay laakiin maanta afkaagan ka rumaysanay inaan dawo aan quality assurance soo marin kiyo lahayn inay soo dalka timaado wacyigelin waa sameynaa runtii meesha laga rabay ma joogno oo waa qiranaynaa laakiin waxaan sameynaa meelaha MCH-yada iyo hadda mar dhawaan bilaawno inaan TV ku dhigno oo hadalla yar yar hooyooyinka xataa tii aan wax baranin ay fahmi karto nafaqada talaalka calaamadaha qatarka uurka markay leedahay waxyaalaha asaasiga TB-da sida lagu kala qaado inaan gelino wasaaradda waa soo gelinay oo bilaaw waa ka dhignay laakiin waa mashruuc intii computer aan heli karno gobol walba aan ka fakarno aan wada fariisano oo qorshe weyn aan ka sameeyno laakiin waa wax aan gacanta ku hayno oo aan bilaawnay sanadkan horaantiisa Madam Minister waxaa jira heshiiska Turkiga aan wada galnay ee ahayd in dadka Soomaaliyeed ee aan lagu daaweyn karin dalka gudihiisa in loo qaado Turkiga heshiiskaas xaguu ku dambeeyay xagee maraysa anagoo wada og inay jiraan caruur wadnaha ka duleela caruur ku dhashay wiil iyo gabar caruur kaliyaha ebarkay caruur u baahan in la daaweeyo heshiiskaas waxaan rabnaa inaa bal hal mar soo istaagto aan noo faahfaahisid meesha uu marayo inta kale Madam Minister waxaa jiro inaan ka gudubnay emergency oo aan u gudubnay development
sababtaasna ay keentay in isbitaalaadkii hay-adihii siin jiray inay kasoo wareegaan oo idinka idin yimaadaan boroseeskaas lagu socday ay ka mid ahayd isbitaalka ku yaalla magaalada beledweyne oo hay-adihii bixinaya daawooyinka iyo qarashaadka shaqaalaha aysan maxay ahayd joogin maanta oo shaqaalahaas ay mushaar la-aan joogaan. farxiyo muumin xildhibaan aada u mahadsantahay. heshiiska waa jiraa, heshiiska markii lagu dhawaaqay mar hore ahayd, ansixidiisa aad late u noqotay. waxaa la ansixiyey sida ii sheegay nimanka Turkida sanadka aakhirkiisa, laakiin wax qoraal qoraal oo annaga noo yimid ma jiro, laakiin si informal waa u wada hadalnay dhakhtarka qaabilsan international relation with Soomaaliya from 2019 waxaan siinaynaa 200 qof 250 qof oo inta aan lagu daaweyn karin aan Turki ku daaweyn. taas maxaa ka horeeya? waxaa ka horeeya qofka in cudurkiisa aanan inta lagu daaweyn karin. wuxuuna igu yiri waa inay soo maraan dhakhtarka isbitaalka Digfer si ay u xaqiijiyaan dokumentiga wasaaradana ay soo qorto warqad raaciso loo diro maxaa la dhahaa Turki isbitaalada iyaga u diraaya kayska baaraya haddii lagu daaweyn kara xamar iyagaba takhaatiir keenan, haddaan lagu daaweyn karin la qaado. annaga ilaa ay hadda ma naqaano siday wax noqdeen. waraaqo badan waa arka oo meelo badan laga soo qoray. annaga meesha looga aadan waxa waaye qofkan ama wuxuu rabaa inuu aado oo bannaanka isku soo daaweeyo asaa iska bixinaya. haddii qofka miskiin aan dhahno qofkan cudurkan uu qabaa kansarka oo kale aad u bartay ma lagu daaweyn kara inta fadlan wixii kaalmo ah noo sameeyo. warqadaas cidna gooni uma laha. wasaaradda markuu yimaado nina u qaabilsanayo gabar hadda aan ku darnay waa loo qoraa warqadda, safaaradda iyo foreign affairs waa loo diraa, laakiin markay xagga gaarto ma aqaan siday u dhaqmayso. waxaa taas follow up aan ka rabi lahayn ambassadorka meesha joogo insha Allah aan ballansanahay sida ugu degdegta leh.